warar degdeg ah halkani waa shacabka t v daawadayaal waxaanu eegaynaa safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu caawa ku tegay magaalada asmara ee caasimada dalka eritrea iyadoo ujeedka ugu weyn ee safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegay waqti xaadirkan dalka eritrea ay tahay arinta ciidankii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud in muddo ah uu ka been sheegayay oo imanka iyagoo nool soo arki doono si dalka ay dib ugu soo laabtaan iyo dowladda eritrea oo ciidankaasi diyaarisay kuwaasi oo ka kooban 5,000 oo ciidan marihii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu dalka u beeray ee dhismaha ciidanka qubadda leh oo maanta soo ifabaxday taasi oo dibadda keentay waxqabadkii dowladdii hore iyo sidii mucaaradka ay kaga soo horjeedeen dowladdaas oo kaliya ku salaysneed dana siyaasadeed haddaba waxaan ku eegi doonaa qaybtan waxaan kaloo eegi doonaa arrin fadeexa oo ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada asmara kadib markii madaxweynaha dalkaasi Asis Afwerki uu afka ka dabooshay ama uu ka xirtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagoo hore u sheegay in uu ku dhacay xanuunka coronavirus kaasi oo markaa keentay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud wadan walba oo dunida ka mid ah marka uu tagayo in markaa laga xirto marada face mask bal wararkaasi iyo kuwa kale ayaan ku falanqeyn doonaa ee qaybta tani oo ah qayb aad u xiiso badan wixii ra'yigiina ah daawadayaal inuu ugu soo gudbiya qaybta afkaarta dadweynaha shacabka t v oo ah warbaahin madax badan ayaa idiin soo gudbinaysa wararka Soomaalida kuwada xaqiiqda ku salaysan muuqaalka bal like saar si dad badan uu gaaro commentigana hoos noogu dhaaf ama qaybta hoose afkaarta dadweynaha hase ahaatee marka hore barashada quraanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaam ah siibahaan waalidka qurbaa ku nool culumta kala duwan ee dugsigan aad ku baranaysa waxa kamid ah barashada xifdiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigan ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan uu qaadanayaa arday kooban oo la barayo diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faahfaahin inta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefanada shaashadayda aynu guda galno warkayaga sidaad hordhiciba ku maqasheen daawadayaal caawa magaalada asmara ee dalka eritrea waxaa ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo safarkiisii ugu horeeyay dhanka dalalka Afrika iminka ku tagay dalkan eritrea oo ka dhigan in marka ahmiyad gaar ah Soomaaliya xiriirka eritrea ay u leedahay barigii hore waxaa la xasuustaa waqtigii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo in dowladdaasi lagu macaarudayo sababta xiriirka ula sameysay eritrea balse madaxweynuhu iyadoo ay feelal ugu jireen wadamada kale ah Ethiopia Kenya Djibouti iyo kuwa kale oo Afrika ka mid ah sida Masar ayuu ka degay dalka eritrea in madaxweynaha oo aan wali Afrika safar kale ku aadin iyadoo ay wadamada sugayaan uu booqdo dalka eritrea waxay ka dhigan tahay baa la leeyahay xiriir aad u weyn oo Soomaaliya iyo eritrea ka dhaxeeya kaasi oo dowladii hore ay soo bilowday iyo ciidanka cududda leh ee tiradoodu badan tahay lagu tababaray dalka eritrea waxa kale oo xiisad leh ama xamaasad leh iyadoo wadamadii Afrika ee ciidamada ka joogeen gudaha dalka Soomaaliya ay markaa aad uga marar dilaaceen talabada uu qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee uu ku tagay dalka eritrea madaxweynaha hore waxaa loogu diiwaan geliyay in ciidankaasi uu ku tilmaamay kuwa la iibsaday oo loo adeegsaday dagaalkii ka dhacay dalka Ethiopia hadda waxa xiiso gaar leh sida madaxweynaha ugu jawaabi doono laba arimood oo kale ah waa midda koobaad in wiilasha la gatay iyo in ay ciidan qaran yihiin in ay qayb ka noqdaan dagaalkii Ethiopia amaba inay yihiin kuwa bad qaba arimahaasi oo dhan ayaa madaxweynaha laga sugayay sidoo kaga jawaabi doono maadaama kala hore isagu yiri ciidanku waa kuwa loo adeegsaday dagaaladii ka dhacay dalka Ethiopia waxaa sidoo kale xusid mudan ummadda Soomaaliyeed in cadeemo badan ay arki doonaan bal waxaanu dib badan xasuusinaynaa daawadayaal hadaladii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee uu ku macaaruday dowladii hore isagoo ciidamada loo tababaray Soomaaliya eritrea imanka laga soo kaxeynay ku tilmaami jiray kuwa la iibsaday dhalinyaro adinkoo kala ah oo hooyo iyo aabe ay soo barbaariyeen oo ay juhdi badan iyo soo geliyeen dhaliyada dhalmada hooyanimo iyo midka aabanimo ka sokow in maalgelin badan la soo geliyo wax la soo bariyo la soo barbaariyay ayaa la yiri dalkiina ayaad
muxuu wax u noqonaysaan ciidan aad noqonaysaan dalkaad difaacaysaan qaar waxaa la yidhi fursad la-aan iyo baagamuunde shaqo la-aana idin haysa shaqan idin geynaynaa waa la qaaday waa la xaabiyey eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waana lagu handada waxa la ciidanka eritrea imaanayo waa lidi dardara waa lidi xasuuqa ilaa waa niman dhalinyara oo intaan mageen ka baxayn la qalday xaggana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaami kartaa adiga wax kale oo aniga ku tilmaamo maaqaan dhalinyaradaas waa la iibsaday eritrea la geeyey war iyo wacaal wax u haya ma leh war soo duulay oo xaggay xag ka soo duulay oo waa dhinteen oo aksum ay ka dagaalameen oo xaggay tageen makala lagu laayay iyo xaggay dhaceen iyo muxuu buuraha ay ka daateen oo qaran muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano dawladdii dhalinyaradii qaaday hal maalin inta dadka soo hor istaagaan dhalinyarada laga hadlayo xaalkoodu waa sidaan ma ayan dhihin ilaa weli ma aqbalin eritrea dhalinyaro u dirna xataa weli ma aqbalin iska daa eritrea dhexdeeda waxay kula sugan yihiin sidaasi mas-uuliyad ma aha sidaasi dadnimo ma aha waxaa la qarinaya waa maxay wax si qalada loo sameeyaa la qarinaya waa mid aan leeyahay dhalinyarada waa la iibsaday ninna kuma dhaco inuu idaacadda inta soo istaagida dhalinyaradii aan iibsanay halkaasay ku dambeeyeen kuma dhaco waxaan leeyahay dawladda iyo ragga siyaasiyiinta ahaa kuwa hadda jooga iyo kuwa berigii dhalinyaradu ay bixiis xilalka hay laakiin hadda aan xilka haynin intaba mas-uuliyada ka saaran waa inay sheegaan dhalinyaradaas xaalkooda sababtay u baxeen iyo tiradoodii iyo meeshay aadeen iyo maanta waxay ku sugan yihiin waa in la sheegaa hooyooyinka dariiqa taagana maalin walba oynayahay xaqay leeyihiin in ilmahoodii loo sheego xaaladooda xaqay u leeyihiin annagaa mas-uuliyad naga saaran tahay inaan dhahno codkeenna ku biirino dhahno war waa arrintaana jiro waa in ay u sheegaan hooyooyinka maalin walba waddada taagan haddaba kaasi waa xasankii shalay markuu mucaarad ka ahaa maantana wuxuu aaday ciidankii uu ku oranayay dagaaladii ka dhaca dalka eritrea ayay ka qayb qaateen beenuraad ma leh waatii soomaaliya ku maamahday wixii ra'yigeena noogu dhaafa qaybta commentiga mahadsanidin